isaguna tiisi isagaa beerdareeyay wuxuu ka helo yuusan nina waxba ka siin Puntland jaaniskii Siciid Cabdullaahi Dani isagaa beerdareeyay markuu ay waagi dhoweyd 2 bilood iyo xamar wareegayo afurooyinka u sameynayay hawiyaha ma soo dhicid Puntland sida bladna waxaan ilaa mudane madaxweyne xasan sheekh maxamed adaa noo keenay adaa watay maantana dan reer Puntland leen isku haysana dan adiga ku gooniyo isku haysana bahashu dad badan intii ay garanayeen waa ay dhaaftay guud ahaanba gobolka Nugaal iyo magaaladii Garowe waxaa lagu daba faylsan yahay Generaal Jimcaale xaqiijin ugu dambeyn Jimcaale taliskiisii ligle ayuu ku sugan yahay waxaan halkaasi ka socoto qabanqaabada munaasabada 1 Luulyo 2026 iyadoo wararka xilligan soo baxay ay xaqiijinayaan in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka uu ka mid yahay wasiir Cali Xoosh taliyaha booliska Soomaaliya Asad Diyaano ay ku soo wajahan yihiin taliska ligle si ay halkaasi uga qayb galaan munaasabada 1 Luulyo Siciid Cabdullaahi Dani oo xilligan ay santalo faraha ugu jirin xilli markaasi uu galgalasho iyo sidoo kale naflacaarinimo siyaasadeed iyo sakaraadkii siyaasadeed ee ugu dambeeyay xilligan uu ku jiro Soomaaliya ninkii Dani ah xilligan wuxuu isku qaaday dhul bahante kooxihiisii miidiyaha uu ku maalgelin jiray ayada dadka ka aragtida duwan ayuu u dhiibayaa mawduuca hogayo baayay laascaanood budlayn laascaanood baa looga soo duulahayaa qodobkaas waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed gartaas inaan qaadno annagana galayna gartaas oo harti ah kana jawaabayno baldoodahaas waxa runta ka ah iyo waxa ka beenta ah waxa cajiib ah Jimcaale waa nin majeertaan oo Ciise Maxamuud ah wuxuuna degan yahay xerada Garowe ma taqaanay ligle magaalada Garowe gudaheedana ciidan ba u joogo duleedkeedana ciidan ba u joogo haddana Dani wuxuu rabaa inuu ummadda reer Puntland inta caamada ay u qaldi karo ugu sheekeeyo dhul bahante baa igu soo duulay yab aabo kan yar iga celi kan weyn waxaan maqli jiray aabo kan yar iga celi kan weyn baan iska celinaya hashu geelayada cuntayadana cabaada war soo dhawaada labadaas qodob baan dul istaagi doonaa kala dhigdhigi doonaa xaqiiqadeeda aan banaankaas keeni doonaa yaa Puntland cadow ku ah dadka reer Puntland dad qayb badan oo kamid maanta jahwareer bay ku jiraan waxaana ugu wacan kooxda mayeeraanka ah ee Dani uu miidiyaha u soo dirsay oo mari habaabin ku wada xaqiiqada rasmiga ah way la wadaagi doonaa soo dhawaada dhamaantiin taariikhdu xilligan waa 30 Juun waa talaado 2026 barnaamijkana waxaan ku dul istaagi doonaa xogii ugu dambeeyay xaalka magaalada Garowe horta ra'yiga dadweynaha Garowe ila arka mikrofoonka ayay gabadhan la dhex qaadaysaa dadka Garowe joogo waxayna taageersan yihiin Jimcaale doona Daniyo marka xabsiyo anta diyaarisid xabsiyo waaweyn ku gur Ciise Maxamuud cid ku rabta mala uf baa lagu jiri waana lagu nacay xaar baa ka soo uriyay kulay nimanka Ciise Maxamuud mala arka arintan halkan ka taagan isaguna tiisi isagaa beerdareeyay wuxuu ka helo yuusan nina waxba ka siin Puntland jaaniskii Siciid Cabdullaahi Dani isagaa beerdareeyay markuu ay waagi dhoweyd 2 bilood iyo xamar wareegayo afurooyinka u sameynayay hawiyaha ma soo dhicid Puntland loo soo dhacay tan Siciid Dani jaanisyadii badnayd isagaa dhumiyay wuxuu ku dhumiyay markuu xamar wareegayay iyo halkaa isaguna tiisi isagaa beerdareeyay wuxuu ka helo yuusan nina waxba ka siin haddee xamar waa u shaqaysanayaayo markuu ugu khasaaro wuxuu rabaa xildhibaanadii laga xuli jiray Puntland in xamar looga xulo oo ismadii muhiimka ah iyo soo jireenka ahaa xamar bay tageen marka iyada ruuxeedu waa soo dhicid Puntland loo soo dhacay maxaa jira waaba kuu sheegay waxaan idhi Puntland jaaniskii Siciid Cabdullaahi Dani isagaa beerdareeyay markuu ay waagi dhoweyd 2 bilood iyo xamar wareegayo afurooyinka u sameynayay hawiyaha waxa la rabay dhaqaalaha inuu ciidankiisa iyo dantiisa iyo gurigiisa ku hagaajiyo sida bladna waxaan ilaa mudane madaxweyne xasan sheekh maxamed adaa noo keenay adaa watay maantana dan reer Puntland leen isku haysana dan adiga ku gooniyo isku haysana waxa tahay marka inkirtida waxaad ahayn ba ku soo baxaysaa moogtaa marka waxaan nahay mugooladnimo aha baanu inkirnay waxaan ahayn qaranimo baanu isbidnay inuu dadka dhiigiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisa u ilaaliyo asaga ayaa wuxuu isku leenayaa ciidankii Puntland waxaan ogtihiin awal in ciidamadii qayb mushaarka ka jaray waraashinkii iyo saadkii iyo cuntadii ay cunayeen oo ka jaray kadibna ciidamadii waxay ahayd laba option bay ahayd inuu ciidankaas mushaarka uga jaray
waxay ciidankaasi inay isbaaro dhigtaan oo dadka laayaan oo qalalaasa magaalada ka abuuraan option kale oo rabayna waxay ahayd inay ciidanku hadday mushaarkii iyo raashinkii waayaan inay iska kala tagaan oo hubkaas meelaha ka aruursado taasi u suurtageli weyday mas-uuliyadda waxaa qaaday dowladda federaalka Soomaaliya oo ay tahay arrinta Suuriya inay ciidamada iyadu cidna gargarta kala gali kareen ayada mushaarkii u qodhay raashinkii siisay ciidankaasna anu ma aanan dhibaato ay magaalada ku hayaan rabsho ay magaalada ku hayaan ma aanan arkin xiriyooday joogaan cidda magaalada ka soo aasax ma aanu aragno xataa iyadoo hub wadato oo magaalada soo aas magaalada iyadoo saasam si Cabdullaahi din meel kasta ciidan ka soo dhaw wasaasuu ciidan ka keenay sanaag buu ciidan ka keenay dib ka jirtaan anagu ma aanaway taliyahoodii buu magaalada ma soo gali karaan taliyahoodii maxaa u jeeday inuu magaalada soo gali karin sababtu soo gali karin xamar waa aas adugu xaqiiqa ma in la magacaabay maxaan ku dhahaa beesiga dowladana laguma soo qorin oo warqad la soo qoray oo lagu soo magacaabay nameena arag waxa aanu maqlay anagu waa war suuqna dee waa war suuq ma jirto anagu hadda cadayn aan hayno ninka in loo soo magacaabay laakiin waa nin waddankiisa u dhashay oo ciidanka hogaamiya oo jarnaala taliya ciidana magaalada soo imaan kara si Cabdullaahi din soo xamar waa aaday xamar markuu aaday hadii la yiraahdo ma imaan karid ka war wuxuu samayn lahaa ninna magaalada laga macni karo cidna magaalada laga macni karo waxaan leeyahay marka si Cabdullaahi daniyow maanta laba option baa ku bannaan labada option oo ku bannaan waxa weeye waddankan iyo dalkan dhibaato intii aad ka geysan karo waa ka geysatay inaad isaga tagto option kale oo ku bannaan waxa weeye inaad waxa weeyaan in dadka isugu yeerto xagaradka oo talada wax ku leh oo talada dhulka aad dhigto cid hadda weerar ku ah ama dagaal ku ah ma jirto adaa dagaal wada adaa qalalaaso wada adaa dhibaato wada ciidamadaasna waa ciidan mucaarad ku yeelan kara waa arrinta Suuriya balas mucaaradi kara dagaal hadda mucaarad dhibaato iyo dagaal wada ma aanu aragno war maxaynu sameynaa marka dadka afka ma qabanna dan iyo gabadha mikrofoonka umada la dhex qaata soo qabo iyaduna gabadh Ciise Maxamuud sida la ii sheegay bal soo xirxir maxaynu sameynaa ilmihii yarka ahaaba xataa og caruurtii yarka la wareystay haweenkii dumarkii ragii maxaynu sameynaa marka dawlad marka Ciise Maxamuud oo dhan markii baroora markii waxba kuma qaban karno waa ra'yiga dadweynaha ma ahan ciidankii Jimcaale ma ahan siyaasiyiinta waa shacabkii taasi waxay ku cadeynaysaa in Generaal Jimcaale uu awood buuxda ku leeyahay gobolka Nugaal ma nin baa gurigiisa loo diidaa ma weelayaan ninku mid kale shalay isagu markuu konteenarada lacagta xamar u sii watay mid baa ku tiraa ku soo laaban oo Puntland boos celiska ka dhiganayay madani ma kaligiisa anaga wuxuu rabaa umada reer Puntland inuu kaligay baa xamar aadi karo shatiga xamar la aadayo kaligiis ma haysto qof kale xamar ma aadi karo aniga bas aqligaaga oo bata macrifadaadu yareeyay oran jiray Soomaalidu aqligaaga inuu bato bal ma fiicna mararka qaar kood waa la ismaahiyaa waxa la jilaa doqonnimo saadanahaaga ama xeelad baa loo jilaa doqonnimo laakiin si haduu aqligaagu bato dad badan baa isnaacaysan qodobkaas halkaas aan uga tagayaa Generaal Jimcaale baan xog idin ka hayay horta magaalada Garowe uu joogaa Liglu joogaa si kastaba ha ku soo galo xaflad weyn buu hadda ku qabanayaa Ligle dowlad tuskiga weyn ee ciidan buu ku soo bandhigayaa munaasabada kowda luuliyana halkaas buu ku xusayaa xaq buu u leeyahay waa sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xaq buu u leeyahay inuu magaaladiisa ku xuso kowda luuliyo daniyaamu dhaha cid aan aniga ahayn ma xusi karto amuu yiraahdo waa macquul waa ka suurtooda waayo waa masiibo umada reer Puntland la dul keenay way Generaal Jimcaale halkaas uu ka abaabulayaa xoge aan la xaqiijin balse aan ka helnay ila wareedyo wargal ah waxay noo xaqiijinayaan in mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalku ay macquul tahay inay ka qayb galaan munaasabadaas oo ay ku biraan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Xoosh oo isaguna deegaanka ka soo jeedo ayaa macquul ay tahay inuu munaasabadaasi ka qayb galo iyadoo markaasi la sheegayo inuu halkaasi tagi doono waxaa sidoo kale macquul ah taliyaha booliska Soomaaliya Janaax Asad Cismaan Cabdillaahi Asadiyaano inuu isaguna dago taliyaha booliska Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale iyo dad kale oo miisaan culus leh taas oo muujinayso in si rasmi ah dowladda federaalku ay xilligan qayb uga joogto Puntland oo amaradeedu xilligan ay shaqeynayaan siday ku dhacday dani hal la weydiiyo annaga dani maamulka Puntland oo dhameystiran oo ciidankiisa iyo dadkiisu iswataan baan u dhiibnay 2019 waliba madaxweyne Cabdullaahi Cali Gaas uu ku wareejiyay xasan waan la dagaalsanayn farmaajo waan la dagaalsanayn Puntland lagama dhex kaluumaysan hal la weydiiyay isaga say ku dhacday
bal isaga hal la weydiiyo seebaa dalkaagii dadkaagii lagugu doomaray hal la weydiiyo isaga dadka reer Puntland waa inay isaga weydiin inta cid kale eedayn waa waray hogayo baaya aysan oran war isaga hal la weydiiyo siday ku dhacday qodobkaas halkaas aan uga tagay Soomaali weynay qodobkayga kale waxa weeye waxaan maqli jiray habar dhali weyday aleela ku waalatay kooxdii dani ee cayayaanka ay agagaska ah agagas way ee miidiyaha joogtay ilaahay dad la yiraahdo dhul bahanta buu ku imtixaanay ma joogi karaan ba urisu ilaahay u saaray haddii shimbiri dhuusto laascaanood ba iska eegayaan wax kale ma ahan yahuudda iyo imaaraadka ay ku shaqaystaan baa nicib laascaanood iyaga maadaama ay candho wadaag la yihiin iyaga mataqaanay iyaga ku neefsaday ee ma ahan intay caqligooda ka garteen inay naceen ma ahan qoliyii gooni goosatada ahaana waa iyaga dee gorowa dhex fadhiyo waa la si dhex marsanaya iyagu waa kaarar la xoqonayo waa kana hubba laascaanood laga soo dajiyay Puntland oo laascaanood xoreysay intee dhul baanta u dhimanay Puntland iyo ma jeerteen hadda calmiska dadka ugu badan ku dhintay dhul baanta ma ahayn miya saraakiisha ugu badnayd ee daroonis riday dhul baanta ma ahayn miya suuje garmaal kuma dhiman miya dagaaladiisu kay gaalkacay kuma dhiman miya hadda Cabdullaahi Yuusuf Xamar ma soo raacin miya mana sheegashada iyo dadka magaca beesha ma jeertaan say u dhiiqeynayaan naxdin ba ku dilayso يا أمك ولقى تلك وذا دمان جري ما تقاناي ما أنا رج ضد يجوا كلام نوع عضو كلام ما نعرف ما دام قرض إساق أورنجرين ورسنجل يجوا البنتا كورنجرين عن صورة يدا عنتان هل كاس كسو غادن هل كاس الله قصو نفسي ترى أنا وقف مجرتنا من الشجرة ما أركن بدني يكون سكر وإمد إلى هاي النجوم امتحامي وحنو عاس إن وحن مد الصومالية تكرر اللي قلنا إن وحنو عاس هجان أي نوعين بكرر اللي قلنا ومد الصومالية نجوقات سمن إسك سمن حماد حلي اللي هذا الوجرة هنا نجوقات قبت ملي على وجه قبت ما شفت وين اللي عطاه هنا نجوقات كوح نوع عاس أو أصل زنزباري أو مد رير بدلان أي سنجران حتى مالي كي مادين بهجان لهاي نوقات اللي نجوقات هذا ما محي سوى بابلين waxay soo abaabuleen saacadii ugu dambeeyay laascaanood baa hub laga soo dejinay wargari Allah taqaana Puntland baa laascaanood laga burburinaya la jimcaale hadda laascaanood buu ka soo galaya war ilmaade riyaal oo dadku ma waalan yihiin war jimcaale yuu yahay jimcaale hadduu yahay nin dhulbaanta waa idin haysanaa nagamana badbaadaysaan in maanta jimcaale oo dhulbaanta u laascaanood nooga soo duulo وأنا نوجا غلطنتين شمعالة يو شمعالة ما نقول بانتا شمعالة ما أهم يعني المجرتين وعيسى محمودة وغضب نينكو حاجات تلسكيسو كيالا تلسكيسو هدوك تكرك كيالا نقول بانتا وأنا قاعد دريه هدوك جنب الرأي يبوع عم يلا سعانات كيالا وأنا قاعد دريه نينك تلسكيسو قروا مكيالا حرادة اللي قلوا مدحتوية الدولات كذا أقول له درس كمدحتوية بورتا بيكون له ده مكيالا قلبيات كما قال هذا إذا ما ذي سقاب قريها مقالة الحين بكجرة دني يو إنت نك عيسى محمود وحسكو رويدي ونين إن أذيرك أبد إسايستان وحسكو رويدي إن ذاتك عامضة غلديد أو أد أسمى يسد عذا وكله والله بس عدك أقبل يسين يسجل من يلينه بل أن واحد كقاعدين أنا نفشله سلسلة كستا يسيتك كستو أصادق تاني أنا مد هرت هذا كقاويا بلنا كقاعد نين عيسى محمود إن قروا كل جوجو oo taliskiisu garow kula joogo inaad dhahdid laascaanood baa la iga duulayaa nin Maxamuud Saleebaan is haysaan inaad dhahdid laascaanood baa la iga duulayaa taliskiina halkan ku yaalo adeertaasi waa gaf bareer ah cid ka yeelaysana ma jirto tolkuna naga raali ahaado dacaayada iyo gafka ay kooxdaas dani gudbinayaan waxay ugu shaqeynayaan yahuud iyo imaaraad iyo gooni goosateen noo dulqaata intaan iska qabanayno noogu dulqaata noo sabr tolkii sabra ilaahay aad ka dhigo nin garow joogo oo xuruntiisu garow ku taalo oo majeerteena oo Maxamuud Saleebaan baydani isayaan ninkii waxallin waayay iska afgaran waayay niman tolkiisu halkaas joogo buu eed kala dul dhacay war Soomaaliya waa gaf waa u jeedaa jimcaalatu ka raqmad degana boocama ma degana laascaano talisku malaha liglu jooga waxa la yirmayd maxaa ugu dambeeyay kan la siisigay haddeer maalin dhawto wuxuu ka soo tagay jimcaale garow laascaanood buu tagay wuxuu si cad ugu tagay Xasan Sheekh haddana wuu soo laabtay dani hadduu ma taqaanay jimcaale la dagaalamayo maalintii muxuu la dagaalami waayay waa isaga yiraahay xuduudahan ka xiranaya haddana way soo galeen
dagaal timcaaladani kulama jiro wuxuu talkaas u aadana waa fadqalala fariirow maxaa barbara ku geeyay baa isugu fuduul inuu laascaanood kooxdiisu ka hadlaan waa hashu iyadaa geela cunta iyadaana cabaada waxaa jira arrin kale dambiye ay galeen oo ay ku qarinayaan baa jira mar kastoo ay eedeeyaan dadkaas boor isku qarin bay wadaan ummadda Soomaaliyeedna waa in loo cadeeyo maxay tahay boor isku qarintu maxay tahay dambiyada ay galeen kooxda dani ma ahayn horta kooxdii la rabay inay eed sheegato waxa la yiri indhihii gar lahaa indhihii gardarna haday ooyaan kuwa gar leh maxaad moodaa kooxda dani iyaga gardaran gari alla taqaano kow maamulkaas SSC ama waqooyi bari hadba ka darabtay ugu jiraan SSC Khaatuman taaganahay inta waqooyi bari la helaya cidii magacaan keentay oo bedeshay waxay ku tartay ceeb ma ah inaan ma taqaana SSC Khaatumadeedii fuulo cadowgooda maanta ay wajahayaan oo Soomaaliya dhan wajahayso waa gooni goosadka Yuhuudda hoos tagay dani inta Nairobi tagay ma la soo sheegay wali ma aragteen qof dhul baahanta ama deegaankaas ka soo jeedo dani eedu haysto ama ka qanuudayo ama ka baroonay ma arag waxay muujinaysaa qaangaarnimada iyo ma taqaanay xilkasnimada dadkaas waxa loo arkay siyaasad in dani siyaasadii halkaas ka gashay war waa siyaasadda faraha laga qaadaa la yiri boqor been madow ama boqor bari madow boqor ma aqaaniye boqor bari madow buu dani keenay Garowe raalina buu ka ahaa isagii odagay madaxa caddaa ee juxa cuqdada qabay ee mareexaankii dhulbaantaa cuqdada u qabay ee wariyaha isagoo wasiir wariyaha isku haystay baa keenay Garowe xilkiina uu ka qaaday markii dambe iyaga keenay raali bayna ka ahaayeen ma aragteen qof dhulbaantaa iyo la wargada jaamac ninkii cayo waliba abtiyaaj caayay baad keenteen waxaasna xeer tolnimo ma ahayn cid le ma aragteen inta kuma eekandani ciyaarihii Puntland wuxuu ku darsaday laascaanood iyo buuhoodle marqaati baad ka tiin waliba wuxuu u soo xulay dad barakacayaasha kaamanka barakacayaasha oo ka soo xulay dad caadi xataa hadduu xulay la macnay ahaan lahayd iyagoo la war maamulkaas kuma jirno wardaniyow naga daa isagoo la goboladaas waa Puntland weeye buucaydiidkii hindiga ah inta u diray wasiirka ciyaaraha ka dhigay buu yiri xul marqaati baa ka tiin 20 gool 30 gool haddana jaayifo buuhood la waxa looga badiyay konton warbuhood la goormay dheelaysay laascaanood waxa looga badiyay konton ka soo gudub Saciid Cabdullaahi dana soo maamulkaas uma jaxabiyo la dagaalo qof kasta oo maamulkaas la dagaalsan xil buu siiyay waxa ugu dambeeyay ninka la yiraahdo Najiib Barkhadle oo isagu kelmadda hindiga awal ku yiri caydiid maanta wuxuu hoos joogay caydiidkii hindiga ka dhigay ku yiri Garowe uu joogaa dani dagaal kulama jiro Najiib Barkhadle Khaatuman wasiirka ah xilkii baa laga qaaday inta soo cararay buu Garowe fariistay wali ma aragteen dhulbaanta leh war nimankii naga soo cararay buu dani xil siiyay baayay waa waray beerkiis la dhacay waa maya wasiiradiisi waxa ugu dambeeyay odagii Bahar Same ee wasiirka cadaaladda uu ka dhigtay haddeer maalina weyto wuxuu marayay deegaanadan Bahar Same qorilay saax dheer iyo marayay maamulka waqooyi bari dib ma baalkeen ciidan bay u soo direen way soo ceesheen wali ma aragteen dhulbaanta kule dani fidnuu nagu wadaayo faragelin buu nagu waday dad buu noo soo diray ma aragn iyaguna jumcaalo harti aba laascaanood tagay baroorta waa wareey aduu jumcaalo laascaanood ka tago ma dambi ba ilaa buur madow Garowe uu joogay jumcaalo haduu laascaanood ka tago soo meesha xoreystay ma soo ragiisi lafiis kuma asna cid kaliya dhulbaanta haday man sheegashatay uma sheegan karto waa Ciise Maxamuud majaartaanka ugu badan meesha iyaga ku dhintay dagaalkii 15 May 15 Maars waa iyaga maxaabiista ugu badan iyaga laga qabtay iyagaana ood wadaag ah daniyo qardhe ka yimid uma man sheegan karo iyagaana hadda heshiisa Ciise Maxamuud iyo dhulbaantana hadda heshiisa haday cid man sheeganaysa Ciise Maxamuud ama jeertaanka man sheegan kara waayo ninkii ugu dhimashada badnaa dagaalkii laascaanood waa iyaga hal maalin baa 20 qof ka dhimatay intii kalena iska badaa maxaabiista ugu badan iyaga Soomaaliland ka qabatay jumcaalana waa nin Ciise Maxamuud laascaanoodna waa magaalada Tulkiis difaacdeen ما أورين كرتيد سيد الله سبحانه مركع جيبو تقع هذا تري جروا كمان دولي كرتيد وقال مدتك ما قدامي ده الله سبحانه وتقيا يا ديك الشلي كوجايستي مركع شركة من دولات كغيب جلسي وفرماجو دارو ده لدك قال لما يا كوجايستي ما تشرت عيد كوجايست ما عيد كوي حنا قريبة جرت مايا تلكيس وتقيا بور مذوبات جروا كانتي يسوون الله سبحانه بكدوريا حق بقول لي ورياب كرياب كيس أرك وربل إلى إسلام وأرنتاس أركا أنا مركي هدان هاي بيرش ما جيرتين يا هرتي يا دارود با دنيا waa gar daran tahay garna ma yeelanaysid wallahi waad heleen hashuna yada geento cunta yada cabaada adiga fidna wada adiga fadqalala wada hadhowna adaa barooranayo oo inteedana laga ma joogi karo dharbaaxadana adaa ku horeeyo qofka dharbaaxa ku dhufanayo
adaana dhulka ku horeeyo dhaqan yahuudeed baad leedahay dhaqanka yahuudaad caan ku tahay iyagaa dadka waxay yeelaanna qariya wixii la yeelo wax yar haddii la taabtana baroorta meelahaad ka shidaal qaadanaysidna oo kugu neefsanayana waan ognahay ummadana ma qaldi kartid dadka caamadana been uma sheegi kartid waa qaldantahay wariya waad qaldantahay dadka kibirkii aabiga kala tuur waxaan ku soo gunaanadayaa dan iyo kooxdiisu doodooda waxa weeye kelmad khaliif sheekh maxamuud isticmaalay allah u naxariistay wuxuu yidhi eedaynta tolka isagoo og cidda dhibta ku hayso firi jimcaalay ishayaan dhulbaantu eed saaraya jimcaalo gore wuu joogaa ligluu joogaa waa nin ciise maxamuuda bay ishaystaan yuu eedaynaya dhulbaanta jimcaalay isdilayaan yuu eedaynaya dhulbaanta waxaan soo xasuustay marka meerisadan wuxuu yidhi khaliif shabeelkii intuu maqasha dhalay meel dayacan sheexshay ee geelu maray oo haddana ari mag weydiistay maahmaahda ereygaaga waa lagu matala wuxuu u gabiyey nin la yidhaahdo cali cilmi afyare dani waa shabeelkii shabeel baa intuu maqal dhalay buu meel dayacan sheexsay geel baa ka jiray maqribkii buu yimid xayawaanadii buu ku yidhi war yaa ariga yaa iga laayay mataqaanaayay maqashaydii saa la yidhi war waa geel baa kaa laayay geelu marka waa lagu waaweyn waa laga dheerdheeryahay suu yidhi wallaahi muuse geel ahayn giira iga laysay ilaan wuxuu ka adagaya isagu giira oo ariga giira markaasuu arigii baduugaha ka dhigay dani hadda waa sidaas waray tolkaas waa kaa xishoonaya ka xishood oo ka warwareeg oo wallaahi godobta aad rabtid inaad tolka majeerteen gelisid keligaabay kugu gaarta waxa isxuduud xiga waa ciise maxamuud iyo dhulbahanti iyaguna waa heshiis waa lagu garanaya dadka fidmo walaa tahay jooji dhibaatada aad wadid jimcaala waa tolka waa in adeerka isagaad ishaysataan garawuuna kula joogaa iska xalli adoo taad i xallin waayey oo ku guul daraysay inaad meelo kale cadow kale samayso waa dhaqmadii kaligi taliyaasha cadow baa la sameeyaa waxaan maqli jiray kaligi taliyaashu say ciidamadooda markay bataan ciidankooda waddan kale oo dariskooda bay ku duulaan oo si ciidankooda u burburo oo aysan ugu soo jeesan hadda dani waa sidaas dadka caamada ma qaldi kartid annaga indhow ah annaga caamada indhaha u furayno walintaasaan ku soo guranaya aad baan idin salaamay meel kastoo aad joogtaan saaxiibadayda ciao ciao